dabcan waan kasii socon doonaa waxaa su-aalo qabaa bal waxaad nooga dhawaajisaa taariikhda iyo waayihii sheekh Bakri Sabalo oo ah sheekhan si weyn uu loo wada garanayo bal horta taariikhdiisa inooga bilow. sheekh Bakri Sabalo waxaa magaciisa la dhahaa oo aabi u bixiyay waa sheekh Abubakar Uthman laakiin magaca markii la soo jaabiyo hadan dhaqanka waxa abiya waa laga jaraayo Bakar baa la dhahaa markii sheekh Bakri Uthman ayaa magaciisu waan gartay waa sheekh ku dhashay ismaamulka Dirdhawa sheekh ku dhashay weeyaan meel Dirdhawa ka fog 30 kilomitir oo la dhaho Joorto ayuu sheekhu ku dhashay noloshiisana intii ugu badnaa xaggaas iyo ismaamulka Dirdhawa meelaha ah erar iyo goota iyo bariyan Hararge ayuu joogi jiray meelo badan laakiin markiisii ugu dambeeyay meeshii uu ku dhashay buu soo laabtay marka sheekhu wuxuu ahaa sheekh caalim ah oo diinta aad u yaqaana oo kutubo badan ayuu dhigi jiray marka sheekha intuu xaggan joogay iyo intuu meelaha kale joogay xeer baa daba socotay wuxuu caan ku yahay cilmiga diinta shareecada islaamka fiqiga xadiidka wuxuu laakiin aada xoogga u saari jiray taariikhda magaalada Harar la dhaho iyo Dirdhawa iyo hareeraheeda iyo waa sheekh in badan ka hadli jiray gumaysiga dadka haystay ayuu taariikhda xisaabaha geologiga cilmiga falaka ayuu in badan sheekhu Allah u naxariistay ayuu ka hadli jiray markaas inkastoo uu sheekhu yahay sheekh gurgura ah oo reerka la dhaho Jundhuble inkastoo uu ka dhashay marka waxaalihiisa ugu badan gabay badan oo ku saabsan diinta ku saabsan gumaysiga ku saabsan taariikhda ayuu sheekhu in badan ayuu kitaabo badan ilaa dhowr iyo 22 kitaab wax u dhow ka qoray kutubada hadda waxaan ka haynaa hal kitaab kaliya oo xerowgiisa uu sheekhu gacanta ka qoray bay ahayd sheekh Maxamed Rashaad Cabdulle sheekh la dhaho cajalada tafsiirka quraanka afka Oromada in badan loo yaqaano qaybtan Oromada ayuu kutubadiisa sheekhu u dhiibay taas uu isaga qoray kaliya ayaan hadda haynaa kutubadiisa kalena sheekhu Ethiopia uu ka qaxay 1977 ayuu ka qaxay sheekhu almost ilaa markaas baa 80 jir wax u dhow marka kutubadii markuu qaxay adigu aan soo laaban doonaa sidii uu qaxay kutubada maadaama arrinta dhisaystaan ayaan ka hadlaynaa markuu sheekhu uu qaxay xaggan soo Hargeysa meel ka fog 25 kilomitir oo la dhaho biyo xadhka oo ay joogeen dadka Soomaalida iyo Oromada dadkii ka qaxay dagaalkii 1977 Georgian calendar 1969 Ethiopia dagaalkii dhexmaray Soomaalida iyo dawladii Mangistu Haile Mariam sheekhu markuu xanuunsaday qofkii ugu dhawaa oo xirtiisa ahaa wuxuu ahaa sheekh Maxamed Rashaad Cabdulle oo markii Ethiopia la joogayna xirtiisa ahaa oo markaas joogay Muqdisho oo xagga ka sameyn jiray barnaamij afromo ku saabsan oo dawladda idaacadda Soomaaliya ay siisay sheekhu markii isagii uu yeelay kutubadiisa wuxuu hayay oo dhan uu dhiibay inuu kutubadaas xafido oo dadku ay ka faa'iideystaan kutubada sheekhu oo dhan waxay ka qornaan af Carabi ah jabayga afromoja dad walba uu haystaa wali waan haynaa anaguna jabayadiisi waa la hayaa maadaama wiilashiisii sheekh Maxamed Siraaj iyo xertii sheekh Mansuur caruurtii sheekha ah oo sheekh Maxamed Nuur oo hadda Mareykanka joogo awoodu sheekhu u yahay iyo xertiisii oo magaalada jooga iyo